بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن برامج كارا وكوبان وأن كجهل لأنه إن doorashooyinka Kenya ku safood leh oo barnaamijka maanta waxa nala fadhiya xildhibaankeena degmada Kamakunji xaafadiisli ayaan barnaamijkan ku qabanaynaa xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo doorashada guud ee dalkan ka qabsoomi doonto 8 bisha soo socota haduu Ilaahay yiraahdo sidoo kale waxa halkan fadhiya Faisal Karate oo kamid ah dadka caawiya dadka dhibaatada qabta inta badan oo dhibaatooyinka badan faraha badan la soo gudboonaado oo dibadaha ugu imaado oo si uu caawin lahaa sidoo kale waxa fadhiya Cambar Khamiis oo taqaanaan waa ciyaaryahan hore ee qaranka Soomaaliya kooxaha badan oo wadanka ka dhisan oo soo ciyaaray marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ku soo dhaw waa dhawahay aad baad u mahadsan tahay xildhibaan waxa inaga warbixisa doorashooyinka meelaha ay marayaan iyo sida aad ka filan doonto iyo doorashada guud sida aad Soomaalida ugu baaqaleed runtii doorashadu hadda qaybtii ugu dambeysay bay iminka soo gashay 3 toddobaad baa ka hadhay doorashadana waxay ka dhacaysaa wadanka oo dhan tan madaxweynaha governorada wadanka oo dhan senatorada iyo xildhibaanada marka anigu waxaan u taaganahay mar kale kursiga Kamakunji oo xaafadda Isli ay ka mid tahay waxaanan isleeyahay hawl badan baad soo qabatay dadka Soomaaliyeed wad u soo shaqaysay marka waxaan mar kale ka codsanayaa shacabka inay soo celiyaan oo aan dhameystiro hawlaha qabyada naga waa tahay doorashadan waxa leeyahay doorashooyinkii la soo dhaafay way ka gudsan tahay maadaama ay isbaysay mucaaradka iyo xisbiga aad ka tirsan tahay Jubilee ay aad isku hayaan dhanka Soomaalida ganacsatada kule xaafadan Isli cabsi badan ayaa jirta markii la dhaho doorasho ayaa Afrika wadan kamid ah ka dhacayso siiba East Africa waxa inta badan dadka ay ka baqayaan in doorashadan ay qallaaso fara badan dhacdo maxaa ugu baaqi lahayd dadka Soomaaliyeed marka ugu horeyso waa runtaasi doorashadan waa doorasho aad u kulul xiisad badan iyo tartan fara badan bay dhalisay ma soo marin taariikhda dalka Kenya in intaasoo qof oo aad u fara badan inay u istaagaan doorashada madaxtinimada gabarnimada iyo xildhibaannimadaba marka tartanku uu adag yahay waxaana la isku haystaa xukunka wadanka laakiin iyadoo sidaa tahay wadankan hal mar buu rabshad galay 2008 ayaa ugu horeysay uguna dambeysay doorashadiina dhaaftay si nabad ayay u dhacday doorashadana waxaa ciidamada dalka waa la soo badiyay biliiska waa la soo badiyay nabadgelyada aad baa loo ilaalinayaa midda kalena shacabka Kenya way ilbaxeen oo way ka ilbaxeen sidii horeeto dad siyaasad lagu kicin kara uma eka anigu waxaan ka cabsi qabo ma jirto waxaan filayaa dawladda inay gacanta xagga amniga ku hayso si nabadgelyana ay doorashadu u dhacayso wax cabsi ah oo dadka ay ka baqaan oo ay doorashada u soo aadi waayaan inaba ha yaraatee ma jirto xildhibaan waxa jira waxa la leeyahay Soomaali kale ayaa kula taagan kursigan adiga in muddo 5 sanadood la soo dhaafay adiga ayaa xilka degmada haye wax badan ayaan ka qabatay rajada aad ku aadan in aad dib u soo laaban doonto doorashada soo socota intee la egtahay aad bay weynta anigu waxaan ka tirsanahay isbahaysiga Jubilee ba u badan 60% dadka codkooda ridanaya Kamakunji xisbiga Jubilee way taageersan yihiin 40 kale ayaa taageersan ururada mucaaradka marka kursigan taariikhiyan wuxuu ku jira gacanta xisbiga dawladda ka taliya had iyo jeer labada kale ee Soomaaliyeed ay la tartamaya mid waxa weeyaan nin 4 jeer oo hore doorashada u istaagay kuna khasaaray mana filanaya inay dadka Soomaalida doonayaan inay kursigan khasaariyaan oo ay lumiyaan ninka kalena nin la garanayo aad loo yaqaan oo iska dhalinyaro weeyaan oo cod sidaas u badan baan haysan marka waxaan anigu oran lahaa dadka Soomaaliyeed ma kala qaybsami karaan dadka codkooda ka ridanaya kursigan waa 120,000 in yar oo ka badan baan anagu ku leenahay 100,000 ee kaleeto waa shacbiga kaleeto oo u badan waliba xisbiga anigu aan ka tirsanahay markaasi in dad fara badan oo Soomaali ah kursigan ma qaadi karo dadka Soomaalidu waxaan ka codsanayaa codkooda inuu meel ay isugu wada shubaan inay ku shubaan qof ay ku kalsoon yihiin oo hore u soo shaqeeyay oo wax garada way aragnimana leh horumarka
cadaaladda iyo midnimada dadka Soomaaliyeed ka shaqeeyay marka sida aan ku kalsoonahay dadka Soomaalidu waqti ay ka midaysan yihiin ma soo marin taariikhda Kamukunji iyo Islii marka waxaan aad baan ugu rajaynahay inuu Ilaahay raali ka noqdo inaan dib ugu soo laabto oo aan si fiican u bogo hawsha Kamukunji ee dhismaheeda iyo horumarkeeda isla markaana aan hubsano kursigan mar kale inuusan gacanta dadka Soomaalida ka bixin insha Allah daawadayaal sidoo kale waxaa barnaamijka inala jooga Faisal Karate oo aad taqaanaan Faisal hadda wuxuu ku sugan yahay degmada Kamukunji gaar ahaan xaafadda Islii Faisal wuxuu ka yimid wadamadaas Yurub gaar ahaan Denmark Faisal xilli doorasho ayaa ku soo aaday oo wadanka doorasho ay ka soo dhawdahay xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi in badan inta aan la dooran Kamukunji waa imaan jirtay xaafadda Islii waa soo booqan jirtay maxaa ay kaga gedisan tahay ayaa isleedahay 5 sano la soo dhaafay iyo degmada isbedelka ka socda بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa dhamaan waxaan salaamahay shacabka Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin kulli Yuusuf Xasan ma nin aan maanta inta macnaha isku aan horeyso waxaan inii sheegay Soomaaliya Yuusuf Xasan in daraadin oo dhimasho u gaaray oo macnaha naftiisa xaqiiqo lagu galiyay waxaan lagu dilay magaca Soomaaliyeed iyo wax qabadka Yuusuf ay la fadhiyaa waxaan xasuustaa mar asoo kooma ku jiro aan isbitaalka xataa ugu tagay asagoo macnaha alxamdulillaah rabbil caalamiin aan saay karin aan socon karin lugiisa jajabeen oo macnaha isbitaalka aqaan isbitaal markuu ku jiray alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waxaan aad ugu faraxsanahay asagoo caafimaad qabayna maanta fadhiyo oo wali jaranjaro aan isla soo fuulnay asagoo soconaya marka Soomaali saan la soconno dadka wax u qabanaya dad kale way kala garanayaan si fiican ay kala yaqaaniin waxaan xasuustaa sili ayadoo la mari karin dhiiqa ay tahay meel biyo lahayn anshuur dadka laga qaadayo oo meel ay ureysa ay tahay ayaan imaan jiray last macnaha 15 years Kenya imaanay intaas oo qof aan ka qaada xanuunsan kulli hadda miniskin sharxay wax walba la socotin Soomaali waxaan in ka codsanayaa sidii marka hore codka u siiseen in codku siiseen kaas wax qabashada weynay qabanaya ayaa wax weyn ka muhiimsan waa aragtana dan meel ka saxara lagu maraa qof jidka lagu baaranayo ma jirto magaalada ma ureyso dhiiqadii meesha ganacsiga dar Soomaalida hataa lama mari jirin waa meesha ay tahay wax qabad wuxuu qabtay aan la tilmaami karin idinkan ina booliska shalay Soomaaliya wuxuu sameeyay maruu joogo dhinacan Jam Street oo saarna baabuur waa dhageysan media ugu jeeday wuxuu dhahay wax walba isbedelka adinka u jeedin marka intii qof cusub oo hadartan shaqadii baranayo oo maxaa la dhahaa ay sheeg oo systemkii fahamsaneen aad macna codkiina waqti kullu man lahaydeen qofku waxay qabanayo ganacsigiina businesskiina waxaan oo dhan waa la socotiin farxada ku jirtiin ilaahay ku mahadnaqa asagana u duceeyo ilaahay inuu fududeeyo khayr uga dhigo marka waxaan leeyahay taageero loo baahan yahay waa tahay sidoo kale waxaa inala fadhiya ciyaaryahankii hore ee qaranka Soomaaliya iyo kooxda Waxool Cambar Khamiis Cambar 20 sano ee ugu dambeysay ee wadanka Soomaaliya oo burburka ka tagnaa waxa uu ku noolaa xaafadda Islii oo ka tirsan degmada Kamukunji Cambar Islii marka imaanaysay iyo maanta way kala gedisan sidaan filayo maxaa ugu baaqi lahayd ummadda Soomaaliyeed iyo ay ku daawanayso bismillaahi raxmaani raxiim dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa gaar ahaan siiba isboortiga ama dhalinyarada soo kacaysa horta intii 20 sano aan ku noolaa waxa Islii hadda ugu horeyntii ka muuqday iyo maanta wax la sheegi kara ama isku mid ah ma aha maanta dhalinyaradena Islii marka imaanay jidka lama mari karin garoomo ma lahayn meel walba daad iyo dacba taalay maalintii Yuusuf uu qabtana maanta hadda Ilaahay mahadiis 70 garoon ayaan ku leenahay dhalinyaradii waa naga mashquulshay waxaan ku mashquulinaa ciyaarihii isboortigii isagana uu gacan nagu siiyay maanta waxaan leeyahay Soomaaliya ma kala qaybsano meel dhinacaan soo aadno oo kursigaasna yuu naga fakan maanta gacanteenu ku jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh barnaamijkan waxaa kusoo xiranaa xildhibaanka degmada Kamukunji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi xildhibaan ugu dambeyntii maxaa ugu baaqi lahayd ummadda Soomaaliyeed ee ku daawanaysa anigu marka ugu horeysa Soomaalidu waxaan oran lahaa xagga dalka weyn ee Soomaaliya waxaan Ilaahay uga bariyaa dadka Soomaalidu inay isu yimaadaan oo isjeclaadaan oo walaaltinimadooda ay xoojiyaan wadanka Soomaaliyeedna Ilaahay inuu nabad siiyo halkeenan waxaan oran lahaa aan meeshan aan wada joogno dadku waxay ku hormaraan inay kala dambeeyaan inay ismaqlaan wada jir iyo midnimo ay wax ku qabsadaan marka Ilaahay uu noo suurtageliyay inaan midowno inaan sidaasi ku sii socono inaan wada tashano si wada jira u shaqeyno xaafadan Isliina aan dhisano annaga iskale hantideeda annaga leh ubadka annaga iskale marka waa xaafadaan iska leenahay oo aanan marti ku ahayn
dhulkan kenyana anagu waxaan ku leenahay qayb weyn qaybtaasi aan ku leenahay inaan dhisano oon ka shaqayno shacibka kaleetana aan si wada jira wax u wada qabsano ayaan anigu ugu baaqayaa ayagana si lixaad leh inay u soo baxaan maalinta doorashada bisha 8 labaatanka kun hadday meel wada marto waa la maqlaya waa cod culus oo wax ka soo bixi karaan xildhibaan dooran kara laakiin haddaan kala qaybsano dad kala firdhay oon awood lahayn oo burburay baan noqonaynaa marka waxaan idinkugu baaqayaa weliba waxaan aada ugu mahadnaqayaa dadka soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed sidii lixaadka lahaa ay u soo baxeen doorashadii xisbiga khaasatan dumarka gabdhaha soomaaliyeed haweenkeena soomaaliyeed aad iyo aad bay u soo baxeen si qiiro leh bay u soo baxeen waxaan isleeyahay hawshaasi ma dhammaan dhammaystira kursiga noo soo celiya kursiga Kamukunji idinkaa iskale islii idinkaa iskale Yuusuf Xasan waa un qof aad dooranaysaan oo meesha idin jooga laakiinse dadka ka hooseeya ee saldhigga u ah budiga u ah idinkaa soo baxa xildhibaan Soomaaliyeedna soo doorta